Asalaamu calaykum akhyaarta sharafta leh kusoo dhawaada channelka Maamus Media. Fadlan dadka cusub tahay channelka subscribe saar, like saar, share na dheh. Mawduuceena maanta waxa uu ku saabsanaan doonaa tobanka dal ee caalamka ugu quruxda badan, waxaana inoo socodsiin doona aniga Cabdicasiis. Halkaas kala socotaan waa channelka Maamus Media. Guud ahaan dalxiiska ayaa kor u kacay dhammaadkii qarnigii 20aad. Ururka dalxiiska ayaa soo saaray liiska dalalka ugu quruxda badan caalamka. waana kuwan liiska tobanka dal ee ugu quruxda badan caalamka. Waxa kaalinta tobnaad ku jira dalka Thailand, isla markaasna ah dal aad u qurux badan oo hantiya dalxiisayaal aad u fara badan. Sidoo kalena waa dalka ugu caansan Koonfur Bari Asia. Sidoo kale tirada dadka dalka Thailand soo boqda waxay kor u dhaafayaan 35.5 milyan sanad kasta. Dalka Thailand waxa uu leeyahay waxyaabo aad u qurux badan oo uu dadka ku soo jiito, sida jasiirado aad u qurux badan iyo meelo qadiimi ah iyo cuntooyin iyaga u gaar ah. Waxa kaalinta sagaalaad ku jira dalka Jarmalka oo ah dal aad u qurux badan, waxaana sanad kasta soo boqda 37.5 milyan. Waxa ku yaala goobo dalxiis oo aad u qurux badan sida goobaha qadiimiga ah ee qurxoon iyo hoteelo aad loo qurxiyay ayaa ku yaala. Waana goob uu ganacsigu si xawli ah uga shaqaynayo. Sidoo kale dalka Jarmalka ku yaala gobollo aad u qurux badan oo loo soo dalxiis tago. Waxa intaa dheer in dalka Jarmalka uu leeyahay masraxyo lagu soo bandhig faneedyo hidaha iyo dhaqanka uu leeyahay dalkaasi Jarmalka. Waxa kaalinta sideedaad ku jira dalka Turkiga. Turkiga dalxiiska ayaa dib u soo laabtay isaga oo ka soo dhaqaaqay kaalinta tobnaad oo yimi kaalinta sideedaad. Dalka Turkiga waxa soo boqda dad gaaraya 37.5 milyan sanad kasta. Waxa uu leeyahay goobo qadiimi ah oo loo dalxiis tago iyo qasriyo aad u qurux badan. Kama maqna cuntooyinka dalkaasi oo ay dalxiisayaashu aad u jecel yihiin. Waxa kaalinta toddobaad ku jirta boqortooyada Ingiriiska. Dabcan boqortooyada Ingiriisku waa mid ka mid ah wadamada ugu quruxda badan caalamka, sidoo kalena leh taariikh aad u qoto dheer. Marka laga soo tago dhaqanka dalkaasi ee hodanka ah, waxa ku yaala xarumo dalxiis oo horumarsan iyo dhismayaal qadiimi ah, iyo weliba madxafyada hodanka ku ah qaybaha kala duwan ee farshaxanada. Qiyaastii 37.7 milyan ayaa soo boqda sanad kasta dalkaasi. Dadka qaar waxay soo jeedaan London oo leh awoodda dhaqaale ee Yurub, waxaana ku yaala goobo dalxiis oo aad u qurux badan sida Big Ben iyo Tower of London iyo masxafyo kala duwan oo aad u qurux badan. Dalxiiska Mexico waxa uu kaalinta lixaad kaga jiraa wadamada ugu quruxda badan caalamka. Waxa ku yaala goobo aad u qurux badan oo loo soo dalxiis tago. Sanad kasta waxa soo boqda dad gaaraya 39.3 milyan. Dalka Mexico waxa ku yaala keymo aad u qurux badan kuwaas oo loogu talagalay in loo soo dalxiis tago. Liiska dalalka ugu quruxda badan caalamka waxa kaalinta shanaad ku jira dalka Talyaaniga. Waa mid ka mid ah dalalka ugu quruxda badan caalamka, waxaana sanad kasta soo boqda dalxiisayaal gaaraya 8.3 milyan. Qofka soo booqanaya dalka Talyaaniga waxa uu u baahan yahay muddo badan sababtoo ah waxa ku yaala dalka Talyaaniga 50 goobood oo qadiimi ah. Waxa kale oo ku yaala qasriyo qadiimi ah oo dadkii hore ee bartamaadka ay deganayeen. Dalka China ayaa ku jira kaalinta afraad liiska tobanka dal ee ugu quruxda badan caalamka, sababtoo ah isweydaarsiga dhaqanka iyo ganacsiga ayaa ah mid ka mid ah meelaha loo soo dalxiis tago caalamka. Meelaha loo soo dalxiis tago dalka China waxaa ka mid ah gidaarka weyn, buuraha iyo macbadka Shilon iyo meelo kale oo qurux badan. Waxaa laga yaabaa dalxiisayaasha soo gaaraya dalka China inay kasii bataan sanadaha soo socda. Waxa kaalinta saddexaad ku jira dalka Mareykanka. Mareykanku waa mid ka mid ah dalalka ugu quruxda badan adduunka. Dalxiisayaal gaaraya 76.9 milyan ayaa soo boqda sanad kasta dalkaasi. Mid ka mid ah ayaa ah waxa uu ku soo jiito dalkaasi dhaqamada kala duwan. Dalxiisayaasha u soo dalxiisa dalka Mareykanka waxa ka baxaya qarash ka badan qarashka ka baxaya kuwa kale ee u dalxiis taga wadamada kale. Dalka Spain waxa uu kaalinta labaad kaga jiraa liiska wadamada ugu quruxda badan caalamka. Waxa uu soo dalxiis tagaa 81.8 milyan sanad kasta.
intooda badanna waxay kasoo jeedaan boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga iyo weliba dalka Jarmalka. Spain waxaa lagu gartaa magaalooyin caan ah oo loo dalxiis tago sida Barcelona, Madrid iyo Granada. Waxaa kaalinta koowaad ku jira liiska dalka ugu quruxda badan caalamka dalka Faransiiska oo ah dal aad u qurux badan. Dalkaasi waxaa soo booqda dalxiisayaal gaaraya 86.9 milyan sanad kasta. Dalka Faransiiska waxaa ku yaal goobo dalxiis oo aad u qurux badan oo loogu talagalay in loo soo dalxiisto iyo weliba 43 goobood oo qadiimi ah iyo weliba meesha ugu quruxda badan dalka Faransiiska ee Eiffel Tower. Akhyaarta sharafta leh, mawduucina maanta halkaas ayuu nooga egyahay. fadlan hadaad ku cusubtahay channelka subscribe saar, like saar, share. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidaas iyo nabadgelyo.